dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxay kooxdu u soo bandhigaysaa maalinka caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kooxda heegan hanuuniyaasha qaranka waxay magacaasi u sitaan baraarujinta iyo isku duubka ummadda Soomaaliyeed iyo u hagidda danaha ummadda qaybahooda kala duwan. kooxdu waxay diyaarisay muddadii laga joogo maalinkii doorashada madaxweynaha ay dhacday ilaa hadda ay ku jirtay diyaar garow ku saabsan sidii ay uga qayb qaadan lahayd maalinka caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sida bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba hadda ay ku arkeen heesaha quruxda badan ee isugu jira waanada iyo tusaalaha iyo bogaadinta sida qiimaha leh qadarinta leh ee ummadda Soomaaliyeed u soo dhaweysay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan leeyahay kooxda heegan waxay ku astaysan tahay midnimada iyo wadajirka iyo iskaashiga qaranka Soomaaliyeed. waxay kooxda heegan hormuud ka ahayd weligeedba in loo halgamo midnimada ummadda Soomaaliyeed. taas ayaana kooxdu waxay ku dhalisay in maalmaha caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la soo bandhigo heesa qiimo leh, heesaasoo ka tarjumaya in la heeso muusiga la tumo qiimo yeelamayso, laakiin waxaa qiimo yeelanaya in la tuso tusaalaha baahida ummadda ay qabto, meelaha dhibka ka imaan karo, sida hadda heesiya halkan ku daawanaynay ay kooxdu ku soo bandhigtayba ay lahayd in haddii aadan mintin oo aadan xiran marada cidi uma maqnay maankaaga geli mudane madaxweyne. marka waxaan leenahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba maalinkaas haddii ay u suurtageli weyso ummadda inay hoolka yimaadaanna waxay kala socdo iyo TV-yada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. warbaahinta afka Soomaaliya ku hadasha guud ahaan waa warbaahinteena. waxaan leenahay ayaguna bulshada gaarsiiya fariimaha ay fanaaniintu soo gudbinayaan. waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed fanaanku iskama heeso muusiga in lagu raaxaysto kaliya looma samaynin, laakiin muusiga wuxuu bixinaa tilmaamo isugu jira digniino, isugu jira dhiirigelin iyo weyga ay ummadda u socoto oo ah horumarka dhaqan dhaqaale bulshadu leedahay.